siyaasi Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo hore uga mid ahaa hoggaanka sare ee xisbiga talada Soomaaliland haya kulmiye loogana ceyriyay xisbigaasi xurguf siyaasadeed oo dhex martay isaga iyo madaxweyne Siilaanyo ayaa ka hadlay kulan wada hadal ah oo yeesheen madaxweyne Siilaanyo kaasi oo lagu dhexdhexaadinayay labadooda waxaanu Cabdiraxmaan Cabdiqaadir meesha ka saaray in kulankaasi ay kaga wada hadleen in uu dib ugu soo biiro xisbiga kulmiye iyo in mansab wasiirnimo la siiyo isagoo sheegay in kulankaasi lagu dhameeyay oo qura colaadii dhextaalay labada dhinac heshiiskaanu heshiinay maaha heshiis siyaasi maaha oo siyaasadka maana wada hadal siyaasadna kuma aanan heshiinin waxaan ku heshiinay labadii reer ee walaalaha colaadii dhex martay intay danto aan walaaltinimadayadii soo celino siyaasaduna waa siyaasad colaaduna waa colaad haddaan ka soo qaado Cabdiraxmaan gudoomiye Cabdiraxmaan ama Jamaal Cali Xuseen أحمد محمود سيلاني لولن بيكون شران وكرسي جيسي كسعودان لكن علادي كمرد حيسو مركا دي سياستين علاد لقى سهراي وعافمات بدن بينه حي halkaas marka heshiiskaas labada qoysa ee walaaltinimo baan u gaadhnay anigu kulmiye noqon maayo dawladda gali maayo kursi أنا دونين يجونا إمسينين شكله عسي ما تعلو إن كسياسي كي ما تحب نام بانا هاي رأيي كي جو عبرنا يا هل كي بان أنا جو حن هاي سياسي كي ما تحب نام وحي وناجي أن تلك أوضو ورنا يا بانا هاي حنايني دمع سياسة ذله وهدي بيدك هذي هاي هل كان أنا ما أنت تشوفه إن كسي يقطبو دون يا qorshahaygaasi sidaas ugu jira wax mustaqbalo maanta ugu jira anigu in dawladdan ama kama mid noqdo ama ma jirto iyaguna waxay ila doonayaan oo jaga ay hayaan oo ileeyihiin Cabdiraxmaan oo jagadaas aanu ku haynay ma jirto Mukhtar Ismaaciil Ali Samsa TV Hargeysa